bal waxaan insha allah ka hadlanaa kitabkeeni bay kusoo jednay oo branch iyo merge baan aragnay marka maanta waxaan bilaabanaa waxa loo yaqaano how to clone repository markaad sidaad u repository aad u samayn lahayd ood u clone garayn lahayd project qof kale qoray github-kaaga ayaad samayn lahayd sababtoo dhe waxaa laga yaabaa goordhow inay projectyada wada isticmaalno ama aad qof kale la shaqaysto oo kadibna source codekiisa intaad qaadato aad la shaqayso so sidaa darteed waxaan imanayaa hyper terminalkaygii so cd baan tuuranayaa desktopkaygaan tegayaa haddana waxaan tegayaa web developmentkeeni baan ku noqonanaa okay coros baan u bixiyey projectka folderkeena project aan ku qoranay okay so waa kan halkan ay ku jiraan maanta oo dhan waxaynu coroska aynu kusoo jirnay waxaynu soo qoranay projectyo waxaasoo folderan haysanaa waxaasoo folderna faylal baa ku dhex jira so laasim markaad doonayso inaad project garayso oo doonayso inaad qaadatood clone garayso cloning baa loo yaqaanaa not for guys marka inaad clone garayso hadda loo doonayo mar hore bal waxaanu bush garaynay rock paper scissorkan kanaan dib u koobiyeynaynaa kadibna kanaan dib u isticmaalanaa so markaa kana imaka clone garaynayaa so laazim markaad doonayso inaad clone garayso projectkaad imanaysaa projectka qofkaa repositorygaasad imanaysaa so code kanaad eegaysaa linkiga halkanaad eegaysaa linkigana just copy soo qaadanaysaa so laazim hadda kaygan waxaan ku furanayaa visual studio codekayga macnii web development kan coursekanaan ayaan folder kale ku dhex samaynayaa loo yaqaano maxaa la yidhahaa inaan gebiga folderka furtaa muhiim maaha guys inaan furtaa muhiim maaha laakiin haddaad doonto isla terminalkanaad make directory odhan kartaa kadibna aad samaynaysaa okay so sidaa darteed halkan aad ayar imanaysaa so markaa mar haddayn samaynay waxaan u bixinayaa lesay folder baan samaynayaa lesay folderka waxaan u bixinayaa clone repo lesay clone repo rebobadhe repository okay so markaan kan imaado terminalkaygaan furayaa ayar si terminalkayga waa inaan furaa kadibna terminalkaygaan tegayaa clone repositoryga si guys eeg imanka repositorygeena folderkani waa faaruq waa waxba kuma jiraan macnii elas haddaad eegto waxba kuma jiraan laakiin waxaan u imanayaa meeday ayar baan u imanayaa maxaa la yidhaahdaa rock paper scissor gamekaynu inagu bush garaynay githubkeena indexkani muu shaqaynayn guys waayo kani rock paper scissor html baan bixinay index html aad u bixisaan jaala ood bedelatay adigu mar haddaa intaa samayn imakaynu samaynanaa haddana dib baan ugu bush garaynanaa okay so marka ayar baan u imanayaa kadibna waxaan u imanayaa terminalkaygii waxaan samaynayaa werse codekii baan tegayaa kanaan koobi odhanayaa linkigan aan koobi gonanayaa kadibna keliyaata waxaad isticmaalaysaa git clone iyo linkiga okay so linkigaad halkan ku baasgaraynaysaa right click haddaad mousekaagaad samayso okay automatically linkigaad koobi soo tidhi ku baasgaraynayaa marka eg folderkan joogaa waa clean repo okay waxaan oo dhan waxaan folderadan way iska furayiin laakiin inagu waxaan joognaa waxaan loo yaqaano maxaa la yidhahdaa where is it clone repo halkan aad eegaysaa terminalkaaga folderkaad joogto clone repository baan joogaa so iron baad intan inter siinaysaa so let's say inter baan siiyey forwardice dambe anaa ku daray markaan siri inter sii markaa inter baan siiyey si markaa cloning intu buu ku leeyahay rock paper scissors buu leeyahay macnaa wuxuu soo qaadanayaa projectkan magaciisu waa rock paper scissors okay so kanuu clone garaynayaa already wuu clone gareeyey halkanaa faylashiinu imanayaan automatically si lasey imanka clone repo markaad eegto rock paper scissor folder baa ah markaa readme file baa ku dhex jira xataa html baa ku jira so lasey elas baan sameeyey rock paper scissor foldera buu sameeyey sababtoo dhe imanka cd haddaan rock paper scissor ka haddana aan idhaahdo oon intan sameeyo kan haddaan imanka htmlkaygan haddaan u imaado lasey terminalkayga tag in yaraan yara zoom out gareeyo so imanka htmlkaygan haddaan imanka ran idhaahdo automatically live server eeg wuxuu samaynayaa wuxuu ran garaynayaa projectgeenii mar haddaan live server ku furo automatically si laazim iyar waa inaan sugaa
okay, rock paper scissorkeena wuu shaqaynayaa sababtoo dhe already gamekan mar horeynu qornay projectkan laakiin wayn kaloon galaynay exi clone rebo clock paper linkigan fiiri si laakiin projectkeenu wuu shaqaynayaa automatically laazim laakiin kan haddaan imika ayar bedesho on rename yidhaahdo let's say aan ka dhigo index.html صح ayar baan index.html ka dhigay folderadana waxaad u clone rebo folderada haddaad doonto waxaad u wareejin kartaa clone rebo guys kan clone rebo u wareeji scriptiga laftiisa clone rebo u wareeji ayaruma drag and drop baan samaynayaa so intan waa iska delete garaynaya ilaa read me fileka uma baahani ayar baan delete siiyey delete markaan siiyo kadibna waxaan ka soo noqonayaa rock paper scissorkii folderkii aan joogay si delete garee buu leeyahy marka admission buu iga baahan yahay permanently okay so imika clear rebadii index.html iyo script baan haystaa so laazim marka waa inaan imika haddaba joogaa rock clone reboga okay clone rebo waan joogaa clear baan idhi so markaan clear gareeyo si laazim eg imika haddaan eego still hadda eg weli wuu shaqaynayaa imika waa inaan open life server haddaan ku idhaa kii kale uu break garoobaya sababtoo dhe waxaan bedelnay hierarchicalka folder fileska okay so still wuu shaqaynayaa so laazim markaa bal waan kaloon gareeyey elas baan eegaya faylashay ku jira halkan elas haddaan sameeyo elas minus a aan idhaahdo eg imise fayl baa ku jira si marka haddaad doonayso haddana imika faylkani caadi buu u shaqaynayaa so laazim haddaad doonto waa inaad u samaysataa maxaa la yidhahdaa waayo projectka qof kalaa qoray programmer kalaa qoray waad soo clone garaysay adiguna waxaad ku darsan kartaa ribos maxaa la yidhahdaa ku bush garayn kartaa githubkaaga okay cloned game one okay badheh okay so html javascript html plus jf baan odhanayaa so intaa markaan create repository yidhaahdo dee laazim waa inaan intii aad garanayso git init baan leeyahay waa inaan shaal garaynayaa goordhow markaan full stagga gaadhna guys aad doonayso inaad clone garayso iska hubi git markaad doonayso inaad folder clone rebo tidhaahdo ls minus egg dhe github inay ku jirto eg folder git ah hadday ku jirto waa inaad delete garaysaa markaad delete garaynayso file rm minus rf baad siinaysaa okay remove marka faylka magaciisubaad qoraysaa hadday git ku jirto gitkaasubaad samaynaysaa ama taabadaata automatically marka goodho saasaa u delete garaynaysaa goodho waan arki doonaa imaka yaanan ka hor degdegin git init baan idhi faylashaan ku darayaa git ad baan odhanayaa git commit baan odhanayaa minus m haddana waxaan soo qaadanayaa this is cloned project game rock paper scissor rock paper scissors intaa markaan idhaahdo kadibna waxaan soo qaadanaya linkigii ii sameeyey githubkaygu waa kanaan ku remote garaynaya macnay git remote weeye git remote weeye kadibna linkigu waa add origin intan markaad linkigu waa intan kadibna add origin markaad tidhaahdo linkigu waa inta yaree dambe laakiinse mar automatically wada koobi garee uu dhammaystiran koodhku laakiin koodhku waa intan hore waa intaa hore laakiin linkigu waa kan repositorygaaga linkigiisu waa intan okay so intaa markaad tidhaahdo inter baan siinayaa inter markaan siiyo git push baan leeyahay haddana origin master okay minus u baad ku dari kartaa laakiinse master waa caadi intaa haddaad samayso ood ku bush garayso already waxaad haysaa repositorygaagii okay so laazim in yar baad sugaysaa automatically masterkiina uu ku bush gareeyey so haddaan imaka refresh yidhaahdo okay waa kan faylkayga uu shaqaynayaa okay haddaan u imaado settingka oon linkiga u sameeyo imaka marka hore aynu bush garaynay index file muu lahayn laakiin imaka index file baynu bixinay so masterkaan imanayaa kanaan bedelayaa si uu linki igu sameeyo okay so pageskii deploy from main I don't need master badhe okay so safe baan leeyahay so laazim markaa imaka refreshun laba jeer dhe kadibna haddaad eegto waxaad arkaysaa maxaa la yidhaahdaa linkigaagii okay so laazim markaad laba jeer refresh tidhaahdo waa inuu linkib kuu siiyaa so infail academy
repository baan leeyahay. Okay, cloned settingkan ku noqday. Where is my pages? si waa kaa imanka linkigii buu sameeyey. in yar baad sugaysaa guys intuu linkigan generate garaynayo mar walba minuteska yara sug. Okay, so waa live domain weeyaan, domain buu kuu sameeyey. goordhow sida actual domainka loo iibsado insha allah marka projectyada dambe aynu isla gaadhanaa. egsi linkiga uu shaqaynayaa haddaad imanka isla sheer garaysaan linkigan, oo insha allah descriptionkan idiin soo dhigi doonaa marka aad barana waxaa la yidhaahdaa sectionadeena. marka insha allah linkigana waa kan wuu shaqaynayaa. si rock paper scissor yaa aad buu shaqaynayaa, si fiican buu shaqaynayaa. kii hore muu shaqaynayn sababtoo dhe kii hore waxaan u shaqaynayn lasey werisit github baan ku noqday. githubka lafteedu sababtoo dhe index male. sababta indexka loogu sameeyo projectyadu waa sidaa, fullback buu leeyahay laazim. iminka rock paper seasonkani isagu linki buu lahaa, laakiin linkigana shaqayn maayo. waynu generate garaynaan jeclahay. iminka haddaan bageskii ku noqdo, so linkigani ma shaqaynayo sababtoo dhe foilkani html rock paper scissor male index html, silaa darteed baan u shaqaynayn. so mar walba iska hubi guys sababta loogu sameeyo websiteyada index file aad bay muhiim tahay. sababtoo dhe main page male, macnii main pageka koowaade websiteku ka bilaabmaya haddaanay jirin wixii ma shaqaynayaan. sidaa darteed kani ma shaqaynayn imanka, laakiin kanaynu xalinay oo saa darteed index html baynu bixinay. so linkigiisina waa kan automatically si uu shaqaynayaa, aad si fiican buu shaqaynayaa. rock paper scissor. okay, khayr ba iska ognaa insha allah. weli waxyaaba badan baa inoo hadhay github iyo gitskii insha allah, markaa wayn sii wadanaa. saa darteed weli qaar badan bayna arag, kuwaasna waynu wadanaa, waynu arkanaa. mar haddaynu projectyada waaweyn gaadhno aad baynu isticmaalnaa git iyo github. so mar walba kama maarmano labadaas. mar walba inaad local repository haysato iyo remote inaad haysato, oo maraad local mashiinkaaga aad ku rangaraynayso ood ku qorayso, iyo maraad remote ka dhigto ood ku bush garaynayso maxaa la yidhahdaa githubkaaga. okay, so markaa khayr ba iska ogna, aad baa ku salaamay.